hay-adda nasdo oo ka mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo arrimaha bini'aadanimada ayaa ka howlgala gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada ku dhow ee shabeellooyinka waxaana ay xoogga saaraan caawinta qoysaska danyarta ah, waxbarashada carruurta agoonta ah, arrimaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. dhalinyaro isu tagay oo u damqaday dadka danyarta ah ayaa hal abuuray hay-addan si ay uga qayb qaataan caawinta walaalahooda dhibaatada ku jira una baahan garab bini'aadanimo, sida uu sheegay gudoomiyaha hay-adda nasdo cabdiraxmaan maxamed xasan oo ku magac dheer maax. waxaan kaloon sameynay ilaa iyo 2 ceel waxaan ka hirgelinay tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar. waxaana ka faa'iideystay dad fara badan oo ku noola tuuladaas. ilaahay fadligiis waxaan kaloon sameynay xarumo oo lagu daryeelo carruurta agoonta oo ku yaala gobolka Banaadir oo lagu magacaabo Kadare. waxaan sameynay inaan si toos ah dhanka caafimaadka aan ka support gareyno wax kasta oo hay-adda ay heli kartana ay gaarsiiso, waayo carruurta Soomaaliyeed oo laga soo aruuriyay meelaha ay ku dandareysnaayeen iskugu geeyay xaruntaas. runtii waxaan aaminsanahay in carruurtaas yihiin inay ku jiraan hogaamiyaashii beri. deegaanada fogfog iyo tuulooyinka ay dhalinyaradan oo iskaashanaya tageen waxaana ay ceelal biyoodyo u hirgeliyeen dad ku noolaa dhul oomana ah oo rafaad dheer u mari jiray si ay u helaan biyo ay cabaan. deegaanadaasi qaarkoodna dadka ku nool hadda waxa ay si joogta u helaan biyo, waxaana u sii dheer inay xoogga saareen caafimaadka iyo ka warqabka hooyada iyo dhallaanka ayagoo kaashanaya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. hay-adda nasdo organization kadib waxay ilaahay u suurtageliyay inay hirgeliso xarumo badan oo caafimaad. duruufo badan kadib waxaa la aasaasay xarumo caafimaad ama MCHO. MCHadaas hadda way shaqeeyaan oo waxaa ka faa'iideysato hooyada iyo dhallaanka. runtii waxaana nagu garab istaagay wasiiradda caafimaadka ee Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur. MCHada kuma eka gobolka Banaadir oo kaliya, waxaa kaloo MCH caafimaad aan ka sameynay maamulka Hirshabeelle, dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Jowhar 2 tuulo oo hoos yimaada. hay-adda nasdo ayaa la aasaasay waqti dhow waxaana ay xoogga saartaa ka warqabka dadka danyarta ah ee aanan heli karin nolosha asaasiga ah iyo carruurta agoonta ah iyo kuwa aan waalidiintooda la noolayn. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.